maxaa ka soconaya saaki qabuuraha iskool buluusiya oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya 10 maalmood u qabatay in meedadka halkaa ku aasan laga saaro? Muxuu yahay amarka bulshada halkaasi gaaray ee eheladooda ku aasan yihiin ee doonayay inay ka saartaan ee lagu soo rogay? Muuqaalkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Haddii aad nagu cusubtiin fadlan nagu soo biir oo ka mid noqda saaxiibada inagu xiran si aad halkan uga heshaan warar warbixino muuqaalaan had iyo jeer halkan ku soo baahino. iyadoo shalay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay shaaca ka qaaday go'aan ay muddo ka meermeersanaysay kaas oo la xiriira in dhulka qabuuraha iskool buluusiya ay dowladda federaalka Soomaaliya u baahan tahay isla markaana meedadka halkaasi ku aasan ay eheladooda u qabteen in 10 cisho gudahooda ay kaga saaraan halkaasi ayaa saaka waxa halkaa gaaray boqolaal dadweyne oo eheladooda halkaasi ku duugan yihiin ama ay ku aasan yihiin. dadkan ayaa gabi ahaanba doonayay in ay si toos ah u dhaqangeliyaan amarka dowladda federaalka Soomaaliya ee ah in meedadka halkaasi laga saaro, waxaase ay la kulmeen caqabad ay sheegeen in marnaba aysan ka filanaynin halkaas oo ah in lagu xujeeyay inay soo qaataan warqad ka socota dowladda hoose ee Xamar taas oo lagu muujinaya inay doonayaan inay la baxaan meed haddii kalena aysan halkaasi kala bixinin wax meed ah. waxaase halkaasi buux dhaafiyay dad fara badan oo go'aankan si weyn uga soo horjeeda, waxayse ku tilmaameen in ay tahay mid lagu doonayo in dhaqaale laga sameeyo qabuuraha halkaasi ku yaala meedadka laga saarayo. warbaahinta oo goobtaasi tagtay ayay ciidamada booliisku ka hortageen inay halkaasi ka soo tabiyaan wararka la xiriira qaabka ay saaka halkaasi wax uga soconayaan. xitaa booliiska halkaa ku sugan ayaa diidan in moobeelada dadka ay isticmaalayaan ay muuqaalo ku duubtaan. waxaase jirta in halkaas ay ka jirto xaalad adag oo dowladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinteeda iyo kan gobolka loogu baaqayo inay si degdeg ah arrintan ay uga fiirsadaan oo ah in dhaqaale ay ku soo rogeen dadka halkaasi u tagay in meedadka ay ka soo saartaan eheladooda ku aasan qabuuraha iskool buluusiya. warbaahinta ayaase lagu amray in wax muuqaal ah ama codad ah aysan ka duubi karin dadka cabashada ka ah go'aanka ay dowladda hoose Xamar soo rogtay ee ah in lacag ay bixiyaan kadibna ay halkaasi ka baxsadaan meedka ku duugan ama ku aasan qabuuraha iskool buluusiya degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. si kastaba ha ahaatee go'aankan dowladda federaalka Soomaaliya ka soo baxay waxaa ka dhashay falcelino la yaab leh, waxaana ka mid ah dadka ka hadlay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku tilmaamay go'aanka dowladda federaalka ay ku gaartay in qabuuraha iskool buluusiya la faago in uu yahay mid dowladdu aysan ka fiirsan isla markaana ay ku degdegtay, wuxuuna qeexay in ay dowladdu burisay hadal uu hore warbaahinta u mariyay wiil uu dhalay Allah u naxariistay majaajiliistii caanka ahaa Cabdi Muriida Jakis kaas oo warbaahinta u sheegay in halkaas ay kala baxaan ehelada meedadka ku aasan qabuuraha iskool buluusiya inay la baxaan oo dowladdu ay doonayso in halkaasi ay dhismo ka hirgeliso, balse dowladda ayaa xilligaas beenisay warkaasi. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in dhulkan ay u isticmaali doonto dan guud isla markaana xarun ay u noqon doonto ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliya ama ciidanka badda.